isxusuusinta guud ahaaneed waxay odhanaysaa insaanku cibaadada ilaahay wuxuu ku toosayaa markuu laba arrimood ka fikiro bilowgiisa iyo dhammaadkiisa dadku intiisa badan waxay ku kadsoomaan ay wax ku hilmaamaan oo quruur uu ugu dhacaa inta dhexda ah laakiin insaanku hadduu ka fikiro sida uu ku bilowday sida uu ku dambayn doono oo uu dib u jalleeco oo uu waanada ilaahay oo arrintaa ku saabsan u dhagaysto markaa cubuudiyadiisa iyo addoonnimadiisa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala way u toosaysaa wuxuu yahay buu garanayaa kibirka iyo faanfaanka iyo isqaadqaadkaa ka baxaya addoon miskiina inuu yahay buu ogaanaya markaa saas darteed baa qur-aanku oo hadalka ilaahay ah oo in badan ku celceliyey labadaa marxaladood inuu ka hadlo marxalat albidaaya wa marxalat nihaayat alinsaan inta u dhaxaysana qur-aanku waa nooga digay waa daartan adduunyada leilaa inu joogno oo uu ku tilmaamay ilaahay uu ku tilmaamay daar alghuruur falaa taguranakum alxayaatu addunya walaa yaguranakum billahi algharuur allah rab alcaalamiin في مواضع متعددة مالك آدو بدن القرآن أيو إنسان بالله بيشو كبلو ذي وكهضي مرمرك قارك على سبيل الاستفهام تقريري وكبلو ونيا وهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أي نعم الإنسان كان وحسمو ذي inuu waxyahayo adduunyadu isaga u kala hayo talow ma soo martay maruusan jirinba magaciisuba waxa insaan la yidhaahba aan la aqoonba ilaahay makhluuqaad kale waa jireen laakiin wax insaan la yidhaah oo jiray ma jirin haddii uu jirana suu noqon doono sida hadda ilaahay u sameeyey weji uu yeelay indho u yeelay dhago u yeelay lugo u yeelay gacmo u yeelay lugo hoosaysiiyey madaxa koraysiiyey buu noqon lahaa mise wax kaluu noqon lahaa ma axad yaclam رب للعالمين الذي خلق فقدر تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وإشكاد المرتاني ما كيف فكرتين وقدره تقديرا الدنيا تكون أغانيشان يعني ألافت الدنيا تكلا تقانان باكو فهميشان قدره تقديرا هذا ربتد إن أد معنى هذا سيف عنه فهمتد وهندسين تا انجنير لذا هي شغله ضفيري انجنير كمعماري قال له يرن وحال أرونا يا لولس كبرنان oo dhagxaantii iyo iska taalle iyo ciidii iyo oodii iyo baa leeyahay dhulkan waxaan rabnaa inaad nooga samayso mool weyn ama building weyn ama masaajid waa hada dhulka iska cidlaa marka muhandiskaa hore kuwa shaqada tanfiidinaya ma aha muhandiskaa hore shaqada laga doonayo waa maxay waa inuu sameeyo waxaad carabtu ay dhahaan الرسم التخطيطي رسمي waa inuu sameeyo بالإنجليزي ديزاين الشيخ عبد الغفار ها ديزاين يا architecture waa inuu sameeyo waa inuu kuus waliba hadda dee sida waa inuu ku soo saaraa meeshii oo sawiran oo intay dhammaystirantay oo laamiyadeedii leh oo dadkii lugeynayaan wax dhan waa inuu soo sawiraa hadhowna waa in lagula xisaabtamaa inay sidaas oo kaleeto inay noqon doonto وبناء عليها waxa gelaya oo idil
من dhagax ومسمار ودهوبو ومش عارف ايش كل waa looga baahan yahay inuu isdhigo halkaa uu si tafatiran u dhigo kulli shay uu tilmaamo alaabtaasi marka lacag badan buu ku qaadanaya هذا قدره تقديرا قدره تقديرا رب العالمين ملك الملوك ذو الجلال والإكرام بقدرته خلق كل شيء فقدره تقديرا marka taqdiirka ilaahay cajiib buu leeyahay